بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن آدي هذه الكوهم بلينيا لأن الشقة قرن تعبرك كتيرته إن دورتين إن الشقة قرن نقطان ودركي نوش قيسان تاسو كمرخاتك عيسى إن تهين دائر دلك هذا شعل أو أرجو محنة يا كهر بريء دلك يقول محوه يا إن تفكر كقاعدتين أو ديارتهين إن دلكينا مستقبل كوش قيسان أو وضعنيمو يدل الإسلام دورتين وضعنا قاعدتان أنت وضع أرجو محنة يا دوران هذا آدي أدبر تكون بلينيا وحنا آدي هذه تكون بلينيا أنت هذا كتيرتين أو دلك وكتير عذركي كافر سيارية طبعا أو كلا حرنا ومدة أنت على حرنا إذا أتكيسك أنت أدور قاعدتين عافمتكينا كويل على السن هي مدحض حرضة أو يودي دي سوقرشة أو كدير كسر نفطه تلفون مو يعني تاسو صاحبين والدكين حاسسكيني إن أنت كحرنا إذا صبر كأو قاعدتنا والدكم بريانية وأنت واجمع وحنون ذين وذقدينه ومعرفة صحة أنا إذا صار رجله شغل قرن وآخردين والدي كهري وأكتيه واحد كهري وحق قبل إنسان حردا الله كامل مريم وحارسي عيدا كقرنك يقع بلابي قرشها يقع لها دروس تلقوا لقايو إيه فلسفة كذا بيصورنا يقع له شقة قرن ما هذا يرضى قرة حردا وحلوق ترى قري أو لو سمي هولكن يقلبكن يو وحنا هذا أذي قالوا ده وحلو سميناه إن هالكلام نقطة إن قرن كأودا لقوا تابره عد كستوها وش قرن كأو تابره نسا وزارده أكاديميو عيدمه نوع دون هذا إن نقطة هالكلام صالح أكاديمي أو اسكو حدا قرن أو كعيدة كوزارة هي كسبيلا وحنا الدولة وناقة iyo sharciga dalka civic education dalka lagu barayo dawladnimada iyo sharciga dalka inaynu dhammaan isku xidhno waa xarunta laga doonayo inay noqoto cadaalad mustaqbalka inta waxa dheer qofku intuu xiradan ku jiro wuxuu doonayaa waxa uu ku dhaqmayaa sharciga ciidanka taana waxa loo doortay sharcigu waa asaaska ama waa hooyada dawladda sharciyada inta badan waxa ilaaliyo haya waa ciidamada marka qofkii hadduu sharciga barto qaabka ciidanka iyo wuxuu qabtaan uu barto wuxuu kororsanayaa hawsha daljacaylka iyo nafuurid ila ciidamadu kuwa dhigooda u horeey u dhinta dalka xabada subaqa si aad ku ilaaliyaan marka halka waxa lagu baranayaa dalka in la hormariyo marka waxaan mustaqbalka doonayaa noqoto meel laga barto habka dawladnimo muddo gaabana waynu arkaynaa ilaahay mahadi dhismaha inoo hirgalay iyo adeega inoo hirgalay iyo inta la egtahay mustaqbalka dhow waxaan u filaynaa inay kumanaan isoo ka soo baxaan qaataan taana waxa mahadeeda leh dadkii aqoonta weyn oo ciidamada qorshaha dheer inoo dejiyay iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay kuwa horeeyay marka ay ninkanoo runtii keenay hogaamin aad iyo aad u wanaagsan intuu halkan hayay oo isagana sharaf u tahay wax lagu dana ay tahay intii aan ka baxday maanta inay u arkaan macalinkoodii meel wada joogan bay ku ixtiraamaan iyaga isla haystaan ay ixtiraameen habluhu kama qayb galaan ilaa hadda وأنا سووا استنا كلنا إليه وحنا كل بشارنا يا نفتي الفرحة له إن سلاكيل هبلو بدن هبلا ترى يربع قرية إنه مو بدن وأجري تعيد ماذا عن أول فرح سنة إن هبلا بدن وديارين ما تإن سلاكيل وغير عيد ماذا قران عيد ماذا قرن كثير كنا دون شغلة داس وحب هايهين هبلا سلاكيل قرية ولكن لا أقوم تعافيمات حرفة عافيمات كوحي قبل يقارنا جامعات كبحي سركار يدو نقونaysa tabar yar oo maraysa waxa uu diyahay arag dhamaan ciidamada kala duwan ciidanka qaranka oo badan booliiska ku xiga asluubta badda socdaalka dhamaantood waxay baahayaan hablo xirfada waayo hablihi xirfada caafimaadka aad iyo aad u wanaagsanada waana loo bogay maanta waa maalin fasaxa salaadii bayna haysaa qadadii bayna haysaa aad iyo aad waa mahadsantihiin inta ay booqasho channelada waa kuwa wada soo sharfeen odayaasha ciidamada ahaa waayo
waxay taas ku tusaa inay odayaasha ciidamada hayaan jecel yihiin dhalinyarada shaqo qaran iyo ciidan diyaar garoobisa oo ah kuwa kala wareegaya iyaga hawsha ee dalka sii wadi doona dalkuna ciidan ku dhisay haddii kala haadka ku dhacayo Soomaa dal ciidan lahayn dacwada cunaysa marka Britain waxaan noqon doontaa waadhow waqti aan fogeen janano dhakhtarro siyaasiyiin maalqabeen intu way ku jiraan ma foga isha dhow baa intaas oo kala bixi doona dalka hogaamin doontaan ilaahay ha idinku simo idinkoo wadaniina idinkoo reer Soomaaliyeed qura idinkoo soo yaqaana idinkoo cid u baahan dalka isku haya bari iyo galbeed yaqaana dalka wuxuu ka kooban yahay meel waliba waxay u baahan tahay iyo si loo hogaamiyo aad iyo aad u mahadsanid wassalaamu calaykum warahmatullahi الرحمن الرحيم مدن مدحوينه gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha taliyaasha ciidamada qaranka ee kala duwan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweyne farxad bay noo tahay inaad maanta nagu soo booqato xarunta ama akademiyada carbiska shaqo qaran iyadoo ay tahay maalin jimco ah oo aad xaq u lahayd inaad nasato laakiin aad door biday inaad soo eegto barbaarta shaqo qaran ee goobtan wax ku barta ama lagu tababarayo waanu kaaga mahad celinaynaa booqashadaas waa fursad uma helin inaad furitaan u samayso markii ay soo galayeen laakiin maanta ayay fursad u heleen inay ku arkaan oo ku soo booqato xaruntan iyadoo muddadii ay gabagaba ku dhowdahay ay dhamaynayeen ama tababarkooda u xidhmayay mudane madaxweyne dhalinyarada halkan ku jirto tiradooda hadda inta joogta ay tahay 307 oo wiilal ah gabdhuhuna ay ku sugan yihiin gobolada waxa ay qaataan tababar kala duwan oo ugu horeeya tababarka ciidanka dhinaca discipliinka dhinaca hubka fudud oo ay bartaan iyo xeesha dagaalka waxa kale oo ay barteen oo maanta u dhamaanaya tababarka ama aqoonta dastuurka iyo wadaniyadda bari sabtidana waxa uu bilaabmaya civic education-ka oo isaguna 2 toddobaad ay qaadan doonaan haddii la yiraahdo dhalinyaradan waxay ka muuqan doontaa mararka dambe ee la kulmo discipliinkooda akhlaaqdooda iyo anshaxooda muddadii ay ku jireen xubno kooban ayaa la qabsan waayay ama naga siibtay oo xeerkii anshax uu qabtay marka ay soo galaan ay cusub yihiin waxa loo qaybiyaa xeer anshax oo ay kuliyadda gaar u leedahay xeerka anshaxa cidii ku xadgudubtaa waxa go'aan ka gaadha guddi anshax oo xeerka ku yaala muddada waxaanu liminay 12 dhalinyarada ka mid ahaa oo anshax darro ku kacay oo amar la'aan iyagu xayndaabka kuliyadda ka baxay saasaanay ku waayeen intii kale way bad qabtaa waxa kale oo iskood uga tegay oo ay ku adkaatay tababarkii 3 xubnood oo ka mid ahaa oo markii hore soo galay laakiin adkaysan kari waayay tababarkii adkaa ay galayeen oo aanu qoraal ka qoray inay iyagu iskood uga tageen wax kale oo wad ama wadeeca ah oo dhalinyarada la kulmay muddadaasi ma jirto waxa kale oo jecelahay inaan halkan ka sheego 9 bilood ka hor dhalinyaradii shaqo qaran ee halkan ku jirtay inan ka mid ah oo bisheedii halkan ka mid ahaa ayaa waxa uu ka qayb galay doorashadii deegaanka ee dhawaan dalka ka dhacday waa uu ku soo baxay uu ku guuleystay doorashadii haddana mar labaad golihii deegaanka ee uu ka mid ka ahaa waxay u doorteen inuu noqdo maayarkii degmada taas waxay muujinaysaa dhalinyarada had iyo jeer waxa la yiraahdaa ama daayarta waxa tihiin madaxdii barito waxa ay soo degdegtay oo noqdeen madaxdii maanta iyagoo imika degmo uu hogaaminayo waliba degmadii ay daashatay colaadii macna darrada ahayd waa degmada Ceelaf Weyn ayuu maanta maayar ka yahay inankaas waa inaan shaqo qaran oo dafcadii labaad ah oo la yiraahdo Maxamed Aadan Digaale waxa kale oo jira oo madax iyaguna noqday dafcadii koowaad dhalinyaradii ku biirtay ee gashay ciidamada qalabka sida kala duwan 5 ciidan ku biiray oo maanta saraakiil ah
oo bishii Abriil oo soo maray gobolada oo dhan oo kormeerayay hablaha shaqo qaran gobolada jooga waxaan kula kulmay iyagoo taliyayaal saldhig iyagoo taliyayaal ilaa sayla ilaa magaalada la yiraahdo Godma Biyaas ay ka yihiin taliye ama taliye ku xigeen waa madaxdii maanta oo shaqeynaysa oo u eeg ama iyagu suqaba inay dadkaba ka xigaan wadanka waa arrin muhiim ah oo aad u muhiim ah hadiya jeer waxa dhici jirtay in labada dhalinyarada ay jaamacada ama iskuul ku wada jiraan isku kalaaska muddadii hore midkood helaya gacan qabasho inuu ku eerto deedna shaqada sida ku gali jiray madaxweyne markii barnaamijkan aad keentay waxa meesha ka baxay taas inankaas waxa ku dhici jirtay marka uu helo garab idgeysa shaqo oo arkakii laga yaabo inuu ka tacliin badnaa ay isku kalaaska ahaayeen uu waayo shaqo inuu mararo dilaaca talaabo badda isku tuuro oo uu tago tahriib u dhaqaaqo intii barnaamijkan uu bilaabmay way joogsatay tahriibtii dhalinyaradii waxay heleen diilo iyo rajo inkastoo aan la wada dabooli karin tirada faraha badan ee jaamacadaha ka soo baxaysa oo awoodeena dhaqaale ay kooban tahay haddana waxaan taladeeda gacanta ku haynaa in dhalinyarada shaqaaleyn kaliya aanay noqonin dafcadaha dambe ee soo socda la jiheeyo oo loo raadiyo barnaamijyo lagu jiheeyo iyagu noqdaan enterprises iyo iskaashatooyin iyagu wax soo saar leh oo kalluunka iyo beeraha iyo xoolaha iyo macdanta iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga mid walba ka qayb galaan oo iyagu cashuur bixiyayaal ay noqdaan waayo dawladdu ma wada qaadi karto mar walba shaqaaleyn waxay ku noqonaysaa culays fara badan dhalinyarada soo baxaysa jaamacaduna aad bay u tiro badan yihiin marka waxaan u raadinaynaa barnaamijkii ballaaran oo haddii aan la yiraahdo aan dhalinyarada ku jihayno oo ay noqdaan dad wax soo saar oo wadankooda u adeega aad baan ugu faraxsanahay madaxweyne waxa kaloon kaaga mahadnaqaynaa mar labaad soo booqashadaadna soo booqatay iyo qadada aad maanta la qadaynayso dhalinyarada shaqo qaran ee ku jirta kuliyadda oo maanta sixniga ay wax ku cunaan mid lamid aad wax kula cunayso adiyadoo ahayd maalin waliba maalin fasaxoo nasasho aad baan kaaga mahadnaqaynaa insha Allah hawshana waa ka sii laba laabaynaa intii taalkayaga